hadiyadani waa mid qaali ah siday iiga farxisay ba adigana kaaga farxid doontaa hadiyadani waxay khaas ku tahay maalinta jumcada kadib salaada markii la tukado ninyo markaad ku soo tukatid masaajidka salaada laga baxo adkaartaada khaaska ahayd ee salaada kadib markaad akhrisatid intaadan masaajidka ka bixin akhri gabar yahay markaad musallahaada ama meeshaad ku tukatid duhurka aad fadhidid intaadan ka kicin meeshaasi akhri wallaahi dan weynaa kuugu jirta haddaad akhrisato 100 xaajo 100 dan oo danahaada ka mid ah baa ilaahay kuu gudaya nus waxay qaabilsan yihiin aakhiro nuska kalena adduunyay qaabilsan yihiin u fiirsada walaalayaal waa 100 xaajo 100 baahi 100 shay aad u baahan tahay way nus waa aakhiro nuska kalena waa adduunyo intaan haddaad jumco walba samaysid insha allahu tacaala salaada kadib maxaad samaynaysaa hadiyadan qaaliga adoo mahadsan allaha ku barakaya muuqaalkana like saar siina sheer gare subscribe na dheh channelka youtube-ka badbaada channel awalan suuratu qul huwa allahu ahad baad akhrinaysaa suuratu ikhlaas meeqaad akhrinaysaa 100 mar khayrku ma dhammaado meel kasta khayr ayaa yaa ka faa'iidaysanaya laakiin yaa nasiib leh yaa akhrinaya khayrku fududa oo sahlana oo baraka badana oo tiro badana oo waxtar badana nolosheena wasakhdaan iyo dhibaatadan iyo calowgan haysta ma haysan lahayn haddaan dhab khayrka u qabsan lahayn mid baa laga yaabaa hal duca inuu barto ama hal aayad inuu barto kaga agdhigan yahay bas khayrka kale xagee ku dayacday albaaba badana ka dayacmay maxaad samaynaysaa qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad 100 mar baa akhrinaysaa kuna salidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ku soo arooray arrinta tilmaamay rasuulka ilaahay laga wariyay calayhi salaatu wasalaam 100 mar markaad ku salidii nabiga qacmaha kor u taaganaysa maxaad leedahay allahumma kfinii bihalalika can haramika wa aghnini bifadlika can siwaak ilaahayow xalaashaada igu kaafi xaaraanta iga kaafi ilaahayow igu qaniyeel fadligaada cid kale ilaahow hay baahin meeqaad leedahay 70 mar baa akhrinaysa ducada laakiin salliga iyo suurada ka horeeya min 100 jeer kadib baa 70 leedahay allahumma kfinii bihalalika can haramik ilaahayow meeshaan xaraam quudan lahaa xalaal iigu bedelo xalaal ii geli imisa xaraam quudata maanta gawaari xaaraana wata guryo xaaraana degan dhul xaaraana haysta beesa xaaraana haysta xoolihii agoonta cunay xoolihii masaakiinta cunay xoolihii dadweynaha cunay xoolihii dadka liqay imisa nool oo haddana qoslayo oo caadiyo guryalo gawaari loo bangiga u buuxo xaraam buu quudanaya nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof walba ama jir walba oo xaaraan ku barbaara naar baa iska leh yacni jirkan maxaa loo korinayaa cubadkan uu siinayo xaaraamta jirkiisaan uu xaaraanta ka dharjinayo naar buu u barbaarinaya naar buu u korinaya wax aan naar ahayn isma yaqaanaan meeshaad xaaraam cuni lahayd gaajo u dhimo meeshaad xaaraan cuni lahayd gaajo ku noolow iyo faqri halis waay dadka hore wanaagsanaa salafkii hore dumarkood waxay dhihi jireen marka ninka uu shaqo aadayo xaajiyo khayr allah ku siiyo bax khayr allah kuu soo dhiibo laakiin iska ilaali xaaraam inay noo soo qaad wallahi gaajo inaan ku noolaana naloo qaata meesha aan xaaraan cuni lahay cajiib marka allahumma kfinii bihalalika can haramika waa shay cajiiba ilaahay xalaal quudsi maanta xalaashu waa yaraat lama kala garanayaba wixii dhan bas ku qasmay qofku shilin buu raadinaya aakhiru zaman nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa adduunyada imaanaysa aakhiru zaman kom nabigu yiri calayhi salaatu wasallam dadku in shilin ku adduunyo qofkii marka xaraam iyo xalaal uma fiirinayo dadkii ahlu diinka ahaa dadka caamadaha qaarkood uga horeeyaan xaraamtii oo xoolihii dadka cunaya oo masaakiintii xoolooda cunaya oo xoolihii dadweynaha loo dhiibtay inkiraya oo ku tasarrufaya ayaga si shakhsiyan boqolaal bal waxa laga yaabaa inay ganacsanayaan ganacsigaasna uusan ka marnay shubha iyo xumaan ribo ay soo ka marnay meel buu ribo ka soo gali khaasatan markay ganacsanayaan dhul aan muslim ahayn waayo waxay la tacaamulayaan bangiyadii waxay la tacaamulayaan waxaalaas waracii baa yaraaday samankan waracii xalaal miiradkii baa yaraaday أسأل الله العافية إلهي بعافية ودي سنين بدبادو مركا ولا ليال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغالي اللهم اكفني جمعة أول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك جمعة هذا قدام بي رمضان سفع عن وآخر إن شاء الله تعالى هاي لوبين جمعة كستان أساس أسبوع عليه أسبوع لك ديكو أسبوع عليه بلناها كودك سن أسبوع عاد سميني ستكمل ديات جمعة إنها مرول بس ميسي ماشا كنتو كتي صلاة دمرك لقبحو inaadan ka kicin ilaa inaad tirahdid mooyaan oo laftaada ku laazimisid haddii xataa banaanka lagugu sugayo
haddii xataa arrin weyn ay bannaanka taallo oo adiga kugu xiran inaad akhrisid mooye inaadan meesha ka bixin naftaada ku laazimi waayo ilaahay baa ku qani yeelaya bili aadan uma baahanaysid wa aghnini bifadlika camman siwaak wixii kaa soo haro dhan ilaahay uga kaafi waay fadligaadaa ka badan ilaahayow wa kaana fadlullaahi calayka cadiima soo nabiga ilaahay kuma dhihin fadliga ilaahay waa kugu badanya wa kaana fadlullaahi calayka cadiima marka fadliga ilaahay baa ka badan deeqda ilaahay baa ka badan bili aadan waxaan weydiisan lahaa ilaahay uga kaafi bili aadan haddii loo baahdo waa dhibaato waa dulli waa ihaano wuu kuu xanaaqayaa kii shala kugu faraxsanaa kii asxaabta ahayd markaa wax weydiisatid wuu ku dhibsanaya laakiin ilaahay markaa wax weydiisatid kuma dhibsanayo bal kugu farxaya sida loo kala fog yahay fiiriye bili aadan haddaa wax weydiisatid kaad iskugu dhowdihiin iskugu jeceshihiin haddaa wax weydiisatid maalinkaas ugu dambaysa ku dhibsanaya ama allah maya allah markaa wax weydiisatid buu kugu farxaya bili aadanka markaada wax weydiisan bay kugu farxayaan rabbul kown baad haysataa khaaliqul kown baad haysataa alla kariima oo wahaaba oo rasaaqa oo qani ah baad haysataa allahaas haddaad dhab u aamintid iyo aayaadkiisa ku tawasushid asmaadiisa ku tawasushid adkaarta ku tawasushid salliga nebiga ku tawasushid waxba kaama xirmayaa biidni illaah wixii xirmana ayagaa dib iska furfuraya imtixaan lama waayayo nolosha oo nabiyullaahi maxamed baa imtixaan maray oo noloshu marka qaarkood ku adkaatay oo marka qaarkood waxa gurihiisa laga cuna la waayay oo marka qaarkood xanuunsanaya oo marka qaarkood la dhakraya oo magaaladiisa markii laga ka cararay dhibaatadii lagu hayay darteed waa la imtixaamaya qofka waa caadi laakiin waa isfurfuri dhibku inuu kugu daaha daran oo isfurfuraysaa wixii yara xirmaba xoogaa lagu tuujiyaba waa isfurfuraysaa fa inna maca alcusri yusra inna maca alcusri yusra sayajcalu allahu bacda cusrin yusra culays kadib fudayd baa imaanaya fastajaaba lahum rabbu ilaahay baa ka jiibaya hawsha sayajcalu allahu bacda cusrin ilaahay culays kadib muxuu keenayaa yusran فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وليس كوابحيا فضيدا إيمانيا وديار قرو هذا هو حال رقابة فرج كإيمانيا مرول بديارين أو تاي سادو مامولي لهاي سادو قفايدي سن لهاي فرج وإيمانيا وديار قرو ها إسديهن ديب كان ولي قاباتكو واريسا كوشيريسا الدنيا وحبا لغو موارو ديب لغو موارو ديفتون مربي تيجي مربي إيمان امتحانكو إيمانيا نبي الله أيوب oo ehel intaasoo caruur leh oo intaasoo reer oo hantiila baa hal mar arintu isbedeshay asagana cudur baa ku dhacay dadku waa ka tageen faqiir buu noqday laakiin wuu sabray ilaa faridka oo imaaday marka faridku waa imaanaya oo diyaar garow insha Allah taala jumcada marka salaada laga baxo khudbada la dhameeyo jumcada salaada la tukado qul huwa la boqol akhri salliga nabiga boqol akhri salliga nabiga qaybta nooca taqaanidba kadibna waxa tiraahdaa Allahumma kfini bihalalika an haramika وأغنني بفضلك عمن سواك تضباطا جير خلاص دنت هذا الراعو إلهي واكو إرساقيا ميلا هذا كفلين إيه ميلا أتكفلي سبا إن شاء الله بعد ما سنتي ربي أيضا حفظه لايك كتاغيرا عشركة كان وكيد رسولك إلهي نوغة عليه الصلاة والسلام سينا شير قراه سبسكرا من ده يوتيوب كبدبادة channel أداد عصبتا يداد يوتيوب تنا بارك الله فيك كليا هراء وسعودة جزاكم الله خيرا.